maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii Juun 2019 waxaa qabsoomay kulankii afraad ee guddiga joogtada baarlamaanka tobnaad oo ah kalfadhigii shanaad. ajandaha guddiga maanta waxaa ugu badnayd oo la isu taagay oo laga shaqeeyay waxa ahayd hakadka uu galay baarlamaanku golaha shacabku ee ku saabsan maadaama ay ramadaan timo dadka cumro u baxeen iyo cibaado la wada baxay oo hakad la geliyay muddo 12 bari ah la geliyay si waajibaadka loo guto in hadda dib loo furo ayaa waxa go'aan lagu gaaray inuu noqdo 15 Juun oo ah maalinta Sabtida oo weeyga soo socda Sabtida maanta Sabtideeda in la furo marka xildhibaanada waxa loogu baaqayaa inay gabi soo xiroodaan inta ka horeysa Muqdisho ku soo xiroodaan si oo furitaanku suuragal u noqdo. waxa kale oo qodobka labaad oo aad loo amal shaqada ahayd wuxuu ahaa ajandaha inta ka hadhay kalfadhigan hadda lagu jiro in ajandihiisii la dhamaystiro waa laga shaqeeyay sababna waqti badan buu qaatay waa laga shaqeeyay inuu yahay mar walba inuu isbedelo oo haddana marka labaad la shirayo on hopefully ognay khamiisteen noqon doonto mar labaad guddiga joogtada ah in arrimaha mar labaad haddana la sii wadi doono. labada qodob oo ugu muhiimsan waxaana gudoominayay shirka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudoominayay ambassador maaragtay mursal ayaa gudoominayay